ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay boqor Cismaan Maxamuud oo Buurmadow sidoo noo xaqiijiyay Maxamed Caabid Digaale oo ka mid ah ehelada boqor Cismaan Maxamuud oo Buurmadow wuxuu Maxamed Caabid Digaale telefishinka Star u sheegay in laga qabtay hotel Mansour ku yaala magaalada Hargeysa waxaanu ka warbixiyay bal sida loo qabtay boqorka wadana waa telefishinka Star balado helada kamid waxa nagu warbixisaa xariga boqorka wadaasnta Cismaan iyo TV Star boqor Cismaan Maxamuud waxa la xidhay 8 oo 5 meelahaas wuxuu joogay hogaanka laba Mansour ku yaala magaalada Hargeysa حوالي بعيدا كسر الدولة العربية ولا كشيء أنا مرة قلت لهم أنا ليش وحنا تقدم يكذبوا أنا مثل ليش قاعدين نجي يضايق فيش سمال أنا كبحثن كنت نادي أظن وحنا مع مقالات الشرع. كان متشرا وحوارنا الله كان بقرك. سلوا مقالة وحوارنا الله متشين سقوا حدود ذي مثلا مثلا ورنا سلمة عيوبي حسيت الدو حاجة تشوف بحب الغم يقولون مثلا سكان صالح بعض الوقت حين نشأ runtina aad waxna mid aan inda qasoosin aad waxna marka ilaa hadda ma ka waraysan meel la geeyay ama ciidad kala xidhiideen meel la geeyay karoonayno inka waxaan Mansour gaari oo naga xabaabay si gaariga loo guri xarida loo geyn lahaa ma garanayno meel la geeyay iyo wax la waxaan waran ka inama in xiriir ma noqdin cadayna waqti boqolka wala xidhay in wala xidhay marka maxay la xidhiidhaa baad ma leynaysaa xarigiisa kulli imanka wax wari kama sameynin xukuumadda laakiin waxaan suumaynaa in la daba joogo hadal u dhawaan kariyo boqorka على أساس كبع بدلان إذا على مسارين مستغنات كيرا بدلان xadhiga boqor Cismaan Maxamuud oo Buurmadow ayaa ku soo beegmaya hadalhayn maalmihii ugu dambeeyay socotay kadib markii boqor Cismaan Maxamuud oo Buurmadow xaflad caleemasaar oo ka dhacaysay deegaanada Puntland laguna dooranayay mid ka mid ah sanada deegaanadaasi uu ka jeediyay taasoo la xiriiray ciidamada qaranka Soomaaliland